بسم الله الرحمن الرحيم وصدام محمد صدام أحمد صدام عبد الرحمن صدام ديريه وعندنا maanta inaan halkan ka hadlo laba qodob oo ku saabsan nabadda Soomaaliland qodobka koowaad waxa weeye beelihii Bariidhowed ku diray deegaanka ceelaf weyn hoos yimaada Dugule iyo Darweyne baa qoraan runtii u diray mar labaad baan hadana maanta ku celinayaa waxaan leeyahay walaalayaal dad sabayno nahay dad sila Ilaahay isqaday baynu nahay nabadda kama maarano inaga ayaa ku nool dadka faraha badan ee ergooyinka ah boqolaalka kor u dhaafay madax dhaqameedka ah ودقن نبلادة مقلة حبدة يو dhibaatada dhacday hal xaliyo wax kasta oo khasaaro adiyada guudkeeda ka dhaca wala xaliyo umadu ay isaga timaadaan qowmiyadaha kale adiyada guudkeeda ku nool si wadamada midna jaarka aynu nahay boqol milyan umad ku dhawaa heshiisa oo wax khilaafaad aanu dhaxmarino khilaafaadkooda xalisata reer Soomaaliland oo dhan marka la isu wadageeyay 4 milyan oo qof baynu nahay oo isku afa isku diina isku luqada isku dhaqan meel qura Ilaahay ku wada beeray waxaan leeyahay walaalayaal ergooyinka faraha badan ee isugu kiiyay ee dantiina u yimid colaada ay dabka ay baqtiyaan doonayaan hal aqbalo oo hal ajiibo ergada ducadeedu way kacdaa waxaan leeyahay arintaasi si mug leh loo maqlo wax kale halkan uga mahadnaqay rag madax dhaqameedka ee runtii xil dhaqan oo wada saaraa baylaahda intii la gudboonayd qabtay ee ay ugu horeeyaan gobolada Sanaag Sool Saraar Togdheer Muruud Shaxda rag ay ka tageen aad baan ugu mahadnaqayaa waxa kale oo halkan mahadnaq ballaaran uga jeedinaya ciidamada qalabka sida ee xuduudaha taagnaa ee ciidanka militariga iyo booliska wali ee ciidan khaasatan ciidanka militariga xuduudihii amniga waxa ay ku dareen arintii amniga gudaha oo booliskii ka xoog roonatay inay ka qayb qaataan arintii hore dharkeen geeyana qayb leeyahay waxbay ka qaateen aad baan ciidamada ugu mahadnaqayaa waxaan leeyahay waa mid shacbigiina iyo ummaddiina idin ogsoon tahay aad baan idinku mahadnaqayaa qodobka labaad ee doonayay inaan ka hadlo maanta waxa weeye arin aana ahayd oo soo yeerjiitay halkan balay diiriyay gobolka Togdheer oo simaada ka dhacday maalin dhaweyd dilka raggii ku eedaysnaa afarta ah oo gacanta lagu soo dhigay koleyda ay cadaan doonto sida xaalku uu yahay iyo ninkii la afduubay oo isagana la soo badbaadiyay waxaan halkan mahad ballaaran uga soo jeedinayaa gudoomiyaha gobolka gudoomiye ku xigeenka madaxda kale ee gobolka waxa kale oo u mahadnaqayaa madaxda gobolka Togdheer khaasatan madaxda dhaqanka iyaguna oo labada beeloodba ka tirsan oo si miir qabta arintaasi uga shaqeeyay imikana gacanta ugu haya waqti dheer baan leeyahay walaalayaal arintaasi way soo jiitamaysay sida taaba maanta gacanta ugu dhigteen ee dilaacaasi aanu halka dhaafin ee u baqtiiseen colaada haddii aan madaxdii gobolka Togdheer tihiin iyo haddii aan madax dhaqameedkii gobolka tihiinba inta hadhayna arinta isxambar raaciya oo inaga soo absharay iyadana si mug leh loo galo aad baan mar labaad iyo maslaxaad bay idinku mahadnaqayaa warbaahinta ila joogtana waa u mahadnaqayaa sida wanaagsan ee bilaa turxaanta ah ee wixii islaax ummadda dhexdeeda ay u gudbinayaan colaadaha aanay u boonboonin iyagana waa u mahadnaqayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.